iyadoo hadda aan idinla hadlayana la sheegay inuu hindisuhu hor yaallo Israa'iil madaxdeeda oo markaa iyaguna ay ka shaqaynayaan. waxaa soo kale goordhow soo gabagaboobay kulan ay yeesheen mas-uuliyiin ka socotay Israa'iil iyo Qatar iyadoo laga wada hadlayay arrinta ku saabsan xabad joojinta iyo sida heshiiska loo gaari karo. dhanka kale waxaa hanjabaad warqad ah soo saaray dad isku sheegay inay yihiin ehelada dadka lagu haysto Gaza, waxayna sheegeen mar dambe inaanay ka ogolaan doonin ninka la yiraahdo Netanyahu inuu sameeyo inuu mar kale hor istaago nabadda. haddaba tafaasiil ku saabsan heshiiskan iyo nooca uu yahay oo qaar ka mid ah qodobadiisa loo soo dusiyay warbaahinta ayaynu barnaamijka idinkula wadaagi doonaa. Ben Gvir oo durbaba bilaabay inuu ka digo oo digniin u diro Netanyahu una sheego inaanu isu dhiibin Xamaas. haddaba muxuu dareemay ninka la yiraahdo Ben Gvir? yaa la gaadi rabaa heshiiska? sidee wax u socdaan? tafaasiil baan iyana idinkaga soo gudbin doonaa. ciidamada Israa'iil oo taangiya wata ayaa tijaabiyay galabta inay ku dhawaan karaan xaafadda Gaza oo ay doonayaan inay qabsadaan, laakiin markiiba Saraya al-Qudus ayaa jawaab kulul soo siisay, dib ayana loo soo celiyay. haddaba sheekooyinkaas xiisaha leh ayaynu barnaamijka caawa ku faahfaahinaynaa. inta aan ku jirno wixii warar ee soo kordhana waan idinla socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turki. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. kulanto wanaagsan asxaabay, meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idinku talagalnay. waa barnaamijkeennii habeennimo. waxaan ku soo gudbinaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn. haddaba waxaa la sheegayaa caawa in waxoogaa rajadu ay soo wanaagsanaatay marka laga hadlayo xabad joojin inay ka dhacdo Gaza. haddaba maxaa keenay rajadaas? maxaa dadka aadka u daneeya arrimaha Gaza arrinkan ay aad rajadan maxay hakee ka dareemayn rajada? haddaba markaan soo akhriyay warbixino kala duwan ayaa waxaa la sheegayaa in barnaamijkaygii galabnimo aan ku soo qaatay inta daawatay way mahadsan yihiin, inta barnaamijka galabta aan daawanno way daawan doonaan. waxaa ku jiray warbixin ah in Xamaas ay aqbashay hindisaha ay keeneen Masar iyo Qatar. hadda marka waxaa leeyahay Israa'iil waxaa lagu sallimay oo loo dhiibay oo ay guddoontay hindisahan iyo waxa ay aqbashay Xamaas. Netanyahu iyo kooxdiisa ayuu hadda agta ka yaalaa. arrinkaas Israa'iil waa lagu wareejiyay, iyaduna war saxa laga rabaa oo rasmi ah. Xamaas way ogolaatay, adikuna waa inay ogolaataan. marka hindisaha iyo faahfaahintiisa iyo wixii laga qoray waa u tegi doonaa. laakiin dhanka kale maxaa isagana dhacay? waxaa la sheegayaa goordhow inuu dhacay kulan dhex maray mas-uuliyiin Israa'iiliyiin ah oo markaa wasiiro ay ku jiraan, iyo wuxuu dhex maray mas-uuliyiin qadariyiin. ma jiro wada hadal fool ka fool ah oo u dhaxeeya Xamaas iyo Israa'iil.
marka waxaa jira waa laysaga kala dab qaadaa. xamaas fariinteeda waxay usoo dhiibanaysaa qatar ayaa u gudbinaysa israa'iil fariinteeda masaray usoo dhiibaysaa. masar ayaa waxay u gudbinaysaa iyadana xamaas. marka qolo walba saasaa marka labadoodu saasay u shaqeeyaan. marmarna waxaa lagu leeyahay qadaraa labadaba isaga kala dab qaada, marmarna masar ayaa isaga kala dabqa, marba waxbaa la sheegaa. okay, marka kulankaasa isaguna dhex maray. kulanka marka waxaa lagu fasiray kastoo tafaasiil badan aysan imaanin in lasii lafagurayo hindisaha oo su-aalo ay ka keentay israa'iil iska weydiinayo. marka hawshaas iyaduna halkaasay maraysaa. marka hindisaha wixii laga yidhi marka muxuu yahay hindisahan? horta waxaa la leeyahay israa'iil waxay aaminsan tahay in laga hayo 20 nool maxaabiisa iyo kuwa kale oo dhintay oo ilaa 30 macnaha lafihii kuwa dhintayna waa la hayaa. intaasaa la hayaa mogta. marka heshiiska israa'iil markii hore waxay qabtay oo Netanyahu ku celcelinayay in hal mar la siiyo maxaabiistooda, hal mar ay qaataan, hal mar in maxaabiista ay qaataan, xamaasna hub ka dhigaan, iska tagaan, meeshaas maaragtay maamul loo sameyn. haddii aanay taasu dhacayn annagu dagaala ka xignaa ay taagnaa yuhuud. hadda marka maxaa isbedelay? xamaasna meeshay taagneed waa ogna. marka yaa soo dabcay labadoodii? waa su-aasha marka muhiimka ah oo dad badan isweydiinayaan. marka hadda waxaa leeyahay aljaziira warbixin ay ka qortay oo aan akhriyay waxay leedahay hindisaha waxaa ku jira inta nool kala bar in la sii daynayo 60 maalmood ee xabad joojinta. 60 maalmoodna hal marba sii daynayaan. 60 maalmood gudihiisa ayay ku kala dayn doonaan. 2 ama 3 qayb baa loo qaybinaa. macnaha tusaale 20 nool 10 la sii deynaa. 10kaas 60kaas maalmood. 60 maalmood markaa in Gaza la gelinayo daawooyin